maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dawladda Soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday 5 eedaysane oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen qaraxii ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarun goboleedka Baay waxaana maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay dhageysatay dacwadii guud ahaanba loo qabay dadkaasi ayada ugu dambeyntina xukun dil ah 5taasi eedaysane lagu xukumay Xasan Maxamed Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda xukun maxkamadeed maanta ay taariikhdu tahay 12 bishii 3 2016 maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedaysanayaasha kala ah kow Xasan Aadan Mursal Xasan Yare 22 jir ah ina cibaado mursal ku dhashay Bakool labo Cabdiladiif Macalin Aadan Macalin Cabdiraxmaan 30 jir ah ina Dowlay Aadan Yaray ku dhashay Baydhabo saddex Siyaad Xasan Faarax 33 jir ah ina Mako Haye Shiil ku dhashay Jubbada Dhexe afar Sharmad Aawow Maxamed 40 jir ah ina Maano Shariif Abuukar ku dhashay Baydhabo shan Cabdirashiid Ibraahim Xasan 38 jir ah ina Aamino Sheekh Cabdi Madoobe oo maqana ah kuwaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabkiisada ku soo wada eedeeyay in ay galaan dambiyada kala ah abaabul ismiidaamin diyaarin qaraxyo xasuuq dad shacab ah iyo kamid noqosho urur hubaysan oo ka soo horjeeda qarannimada iyagoo ka dambeeyay qaraxyadii mataanaha ahaa ee lala beegsaday maqaayada Badar iyo meel suuq ah oo ku dhow hotel Baydhabo qaraxa koowaad oo loo adeegsaday gaari hoomay ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa laguna qarxiyay meesha aan hadda taaganahay oo ah ka soo horjeedka hotel Baydhabo kan labaadna waxaa sameeyay nin isku qarxiyay maqaayada Badar sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in kow Xasan Aadan Mursal Xasan Yare labo Cabdiladiif Macalin Aadan Macalin Cabdiraxmaan saddex Siyaad Xasan Faarax afar Sharmad Aawow Maxamed shan Cabdirashiid Ibraahim Xasan oo maqane ah ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiyadii lagu soo wada oogay oo ah in ay abaabuleen fuliyeen labadii qarax ee ka dhacay meesha goobtan 28 bishii 2016 waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah Cabduqaadir Cali Maxamed waxay ku xukuntay 3 sano oo xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga si degdeg ah looga sii daayo Cabdiraxmaan Macalin Aadan Macalin Cabdiraxmaan kaas oo lagu waayay qulug lahaanshaha eedda lagu soo oogay wabillahi tawfiiq xukunka maxkamadda ayaa ka soo beegmaya xilli muddooyinkii u dambeeyay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dawladda Soomaaliya ay ku sugnayd magaalada Baydhabo xukuno kala duwan ay ka waday gobolada dalka Maxamed Aadan Socdaal Jubaland TV Baydhabo